mudane ra'iisul wasaare waxaan jeclahay su'aal ku saabsan in haddii la isbarbar dhigo hawshii dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga u haysa kolkii hore ee ku-xigeenka madaxweynaha iyo hawshan cusub ee ra'iisul wasaarenimada marka la isbardhigo noloshaada siyaasadeed wax ay ka beddeshay ma jiraan may waxba ka beddeli mayso madaxweyne ku-xigeenka koowaad baan ahaa awal haatanna waa ahay madaxweyne ku-xigeen koowaad طبعا xilkan cusub ee ra'iisul wasaarenimada culays ziyaada ah iyo hawl ka culus tii hore aan hay maxay markii hore madaxweyne ku-xigeenna waa ahaa wasiir gaashaandhigna waa ahaa marakan xilkii wasiirnimo mid ka weyn oo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu aaminay طبعا way ka weynaanaysaa xilku waa ka weynaanay intii hore mudane ra'iisul wasaare waxaa jagadan ugu dambaysa dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya kacaanka ka hor haddaba shacbiga Soomaaliyeed jagadan cusub ee imika dib ugu cusub ee la abuuray si ugu muuqataa waxaan aaminsanahay shacbiga inay ugu muuqato biseel iyo taqadum kacaanka uu sameeyey uu gaaray kacaanka sanadkii 18aad buu maraya markaasna waxaan loo arkay ama madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya oo hogaamiyey kacaanka ah Jaalisiyaad wuxuu u arkay inay daruuri tahay la gaaray waqti munaasab ay tahay in jagadaas ra'iisul wasaaraha la abuuro oo xilkii hadda ka hor madaxweynaha uu isku hayay oo hogaamintii dawladda culays badan ku dhacayay in ay daruuri tahay ama munaasib tahay wakhtigan in jagadaas la abuuro si culayskii badnaa qaar uu uga wareego oo mas'uul kale uu la qaybsado xilkii mudane ra'iisul wasaare waxaa jirtay in sannadahan dambe in ay ka jirtay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya furfurnaan xagga dhaqaalaha maxaa natiijooyin ah oo maanta la odhan karaa way ka soo baxeen barnaamijkaas furfurnaanta dhaqaalaha waynu wadnaa natiijooyin fiicanna waa laga gaaray oo haddii muddadii wufuudda halkan ay joogeen uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu hogaaminayay mudane xasan guuled abtidoon ama waftigii hore u dhaca ahaa ee ka soo horreeyey madaxweynaha doodihii ay la yeesheen saaxiibayaashood ama walaalahood waxaa ku jiray daraasadahaas ama doodahaas arrimo dhaqaalaha khuseeyo waxaad halkaa ay ka ogaan karaan ama ka dhuuxi karaan hore u kaca dhaqaale ee la sameeyey muddadaa uu socday barnaamijkaas dhaqaalaha ha la furfuro dhaqaalaha ha la furfuro macnaheeda ma aha infitaax complete yacni faraha wixii dawladda ha kala wada baxdo sida dad badan uu u tarjamayo laakiin waxaa weeye meelihii dawladda ay wadi kartana ha wado meeshii dadka rayidka ah ama dadka privatka ah uu wadi karana ha wado dhaqaalihii markaa ha noqdo dhaqaale isbuuxinaya oo xagga milkiilaha gaarka ah iyo milkiyadda caamka ahee midda dawliga ahba ha wada socdaan arrintaasna hore u kac fiican iyo didiilo fiican bay keentay in haddaba toddobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa iyaguna soo baxay warar sheegaya in abaar cusub ay ka bilaabatay dalkan Soomaaliya heer kay gaarsiisan tahay ama imse gobol ayay saamaysay waa dhab in abaartaasi ay jirto ama saansaanya abaaraan dhoo hadda abaar buuxda weli heerkeedii lama joogo laakiin jiilaal dheeraaday saansaanya abaareedna ay muuqdaan ayaa jira bilooyin baana weli xilligii roobka naga xiga waxaan filaynaa in dhibaatadaas ay sii cuslaan doonto waxayna saameeyaan gobollo ilaa 6 gaarayo gobolladii ay ka bilaabatay dhibaatada oo aad xaaladooda ay u qallafsan tahay oo xaalad abaareed lagu tilmaami karo waxaa weeye gobollada ay ka mid yihiin galguduud mudug hiiraan gobolladaas xaaladooda aad bay u culus tahay dawladda Soomaaliyeed gurmadna waa u samaysay dawlada aynu saaxiibo nahayna qayladhaan way gaarsiisay ilaa laanana waxyaalo ayaa naga soo gaaray waddamada qaarkood gurmadkii xagga dawladda ay wadayna weli sidii bay u wadaa
gurmadkaa ama ha ahaado dadka iyo xoolaha oo biyo la gaarsiiyo iyo raashin la gaarsiiyo intaba aad baa loo wadaa ololahaas awoodda inta ay dhan tahayna waxba laga hagran maayo dhibaatada haddii ay sii dheeraato lagama maarmaan bay noqon doontaa in intaa laga sii badiyo gurmadka oo culays intaa ka badan la saaro sidii loo badbaadin lahaa dadka iyo duunyadaba naftooda waa mahadsan tahay mudane ra'iisul wasaare